السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan maanta qaadanaynaa oo aan rabaa inaan idin wadaago compound project ka soo qaad inaad one villa abuurtay. halkaas villa waxaa rabtaa inaad inta copy paste tiraahdo oo u beddesho villooyin badan oo isku xiran oo hal compound isku ah. marka dulay raxmadan ayaan ku tijaabinaynaa. marka ugu horeyso cabirka horta fiirinaynaa section boxkaas ku dhufanaysaa. okay حبت كان عونينا edit انت كان كليها عونينا. اوكي section box كان كبحنو دينعانو 30.4 iyo halkaan waa 2.69 view visibility graph leedahay site survey bountiga ayaan u baahannahay inaan helno. okay waa kana survey bountiga marka. okay markaan helno survey bountiga waan saf garanaynaa kood hore waxaan iska tirno save node save afterkiisa aan diraynaa new project aan sameynaynaa architect template. okay save waxa u bixisaa master layout option hal save waxaan ka dhigo markood ma baahnay waan elevation points kan bixina. okay aan taaganahay project unit ka soxo meter like meter aan ku shaqeeyaan jeclahay to ismael please. okay manage and site property line create by sketch rectangle ka yaqaad dhinacan waxa garanay 2 alif point 69 halkaana waxaan ka dhignay 13.40 sidaas waxaa ku haysataa cabirkii halkii guri aan haysanay. marka mirror leedahay marka aan kala fujinaynaa macnaha haddii gurigaaga darbi wareeg uu leeyahay saanina isugu dhajiso is good because hal darbi ku wadaagayaan laba villo isku dhagan ku noqonayaan. maadaama kayga darbi wareeg uu salahayn meel bannaan u yaallo kaliya leedahay remove inta waxaa ka sikisaa 1 meter labadoodan copy leh mirror leedahay waxaan skinina ayagana 6 meter copy 6 copy mirror lexdooda lixdana move lana markaas laamiyan ka raba u dhaxeeya labadooda oo 16 mitir
okay save note fileka iladan ama soo furayna okay okay master level kan ku laabtay manage transfer project level halkaas fileka bilada inuu ku yahay iska hubi dib u kala leedahay new okay waxaan soo qaadaa loo inkaas noo yahay noo fiiri gudahaan warshadiyada yaraan u sameynayna waxaan leedahay big waxaan saarnaa daan dadka magaalada warshadiyada waa dad iyo dad okay marka halkan line yar noogu samee centerka lineka centerkiisaas arc yar noo saaro 8 mitir kadib offset waxaa baxdaa sana 6 linkan iska tir trim halkan ayadana waa jarayaa isku xir kuwan guryaha meelaha aan u talagalay waa inaan ka baxshaa floorka halkaas markuu marayo aan maraa sitekan tagaynaa managing site top observers meeshaan waxaan ka hoos marinaynaa 0.15 بدلينا material كده new material rename ده asphalt set work waxaan qaadaa grey dagaas noo qaadka waxaan sameynaa fiirinaynaa bal waxaan geynaynaa inkscape aan ku fiirinaa mar okay meesha tartaan waxaan ku dhajinaynaa slab edge ayaan u sameynaynaa waxaan leenahay floor slab edge halkaas kore aan dhab ku siinay haddii arki weysid wireframe ka dhigo okay markaa ka dhigto kanaan laftirkiisaanan aan bedelaynaa waxyar
duplicate tuugisaas nagu daa halkan profile-ka waxa ka dhigtaa carb carbigaas waa material aan sameeyay hoos aadin soo dhigi doonaa duulayra carbiga ku dhufanaysa modelkaas uu noqonaya waka noocaas uu ekaanaya create similar okay materialkiisa madelina materialkiisa rename carb site waagaas intee imaato gravel mixigaas nooga dhig marka hore waxaad tagaysaa site markaad tagto waxaad leedahay manage linkiisa ku dhufanaysaa insert inta ka soo gelay insert ku dhufanay manage linkigaas soo gelinay aad dhahe filekaaga meesha uu ku yaalay villada soo gashanay halkaas origin to origin inay ku tahay iska fiiri oo binaadhehe okay waa ka ku soo galay marka uu ku soo galo ayaa waxa leedahay okay waa ka halka ku soo istaagay marka hore aan garanayna modify align tool kana soo kobo okay markaan waxaan rabnaa inaan ka qarno wixii annotation ah si annotation ku qarnayna waxaa leedahay visibility graph ayaa tagaysaa kood hore view visibility graph markaad tagto Revit links waa kan waa haysataa by host view custom ka dhigaysaa meeshaas kadib annotation aad tagaysaa custom annotation ka xataa ogolo custom inaad ka dhigto showgaas aad tagta ka qaadaysaa kadib okay markaad tagto fileka site aad ku dhufato site daad tagto villadan meesha taala project base pointigeeda waa kan base pointigan oo 0.0 ah oo soo qaadaysaa halkan pointigan aan keeninaa base pointiga villada marka halka dhigto waxa leedahay manage hadana leedahay ana waa ku sharciyeynaa halkaas base pointiga inuu yahay inuu fahmo waxa u baahan tahay marka waxa leedahay manage coordinate publish coordinate leedahay waa publish gareey hadda sida ugu dhufato publish gareeysan yahay uu yaqaan macnaha location-ka ay tahay caadi uu aqoonsado markaan maadaama location-keedii hore base pointiga abadishi publish hadda tirado location ka cusub ayaa geysay uu aqoonsanayaa villadaas oo magacaabaysaa waxa leedahay rename magaco bixi party 1 party 1 ka bixiso okay atri director la isbedela marka magacii okay leedahay halkaas markaa marayso hadana dib u laabanayna because linkigan inaan coordinate-kiisa aan bedelnay coordinate cusub halka inaan u dhignay waa inaan u soo sheegnaa hadana waxa la insert manage links linkiga ku dhufanaysa linkiga markaa ku dhufato waxa la save position dib u save gareey save aan leedahay okay si accurate markaas dhameystiran ayuu u yaqaan okay
faylka oo soo garanayna iska xirayna haddana villadan soo furanayna markaan villada soo furano aan mar site ka tagno soo maaragtid positionkii aan bedelnay waa ka halkaas aaday oo halkaa tagay kaas waa aragnayn isbedel ku dhacay oo meeshii base pointiga 0.0 da halkaas aan gelinay isbedelkaan sameynaa rabaa inaan ku tuso haddana waxaad tiraa manage location site maxaa u bixinay part 1 kiina waa kaasa directly waxaa fahantay marka shaqada aan ka wadno master layout-ka iyo shaqada halkaan taalo way isleeyihiin balance gareyna wuxuu dunida uga duwan yahay Revit-ka software-ada kale waa inuu si walba u wada shaqeynayo linkiskiisa way wada xiriiraan aad u wada shaqeynaya sidoo kale waxaa ku darsataa waxaad dhigi kartaa insert manage links add master layout halkan waa bedelinaysaa partial coordinate maadaama hore aan u share gareynay directly asagana uu aqoonsan yahay wax isbedelo gooni kuma dhacayaan weel macnaha labada file si isku baranayaan inaa isbarto muhiimada ay leedahay waan naga xir labadan file ba naga xir master layout noo soo fur wixii halkan ka dambeeya markaa copy gareynaynaa systemka uu ka cadan yahay intoodan copy aad dhigi kartaa meeshaan banaanka dhig kadib roteeda leedahay weli waxyaraan dhiman hadda kana qalanka ku dhufato wuu yaqaanaa maaragtaa soo maaragtid part 1 waa magaceeda aan soo bixinay kanoo kale ma yaqaan not shared lama yaqaano soo share gareyna marka oo soo sharciyeynaysaa manage adaysa waxa ku dhufanaysaa public coordinate saade kadib asaa laba jeer reer ku siinaysaa kii hore part 1 ka ha iska tirin duplicate aan leedahay kan maxaa u bixinaysaa part 2 okay kadib okay aan leedahay haddaan ku dhufato wuu yaqaan waa part 2 kan saddexaad sidoo kale duplicate part toos u yaqaan waxaan markaan wax ka dambeeyo toos u yaqaan ka ku dhufato invoice part 1 3 9 marka waxaa sameynaysaa save gareyso save
aka baxna marka midkan hal mar waxaan furtaa marka villa waxaana geysan site-ka oo fiirso caadi u xifdisan yahay macnaha labada files ay isugu xiran yihiin manage aan leedahay location site wixii oo dhan ayuu dhammaystiran haystaa hadda waxaad tiri waxaad tagtaa part 9 tagaa tiri make current okay adhaade waa tagaa positionkii aa u dirto aadaya location waa isbedelaya location site 12 make current aa leedahay okay make current waa yaqaanaa waa save garaysanaysaa okay khayarta sharafka iyo maamuuska badan waxaan idin rajeynayaa waqti aad iyo aad u wacan oo qurux badan haddaad ku cusub tahay channelka subscribe garayso videoga like saar saaxiibada la wadaag maalintu ha idin wacnaato. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.